بسم الله الرحمن الرحيم فقانا رجال السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin sheegayaa maanta waxaan ka hadlayaa sanad guuradii 7 ee Jawxo ama ONLF sida uga dhacday magaalada Jigjiga baan si fiican ula socday isha ku hayay inkastoo meelaha qaarkood si fiican u arag labada dhinac ana si fiican u arag laakiin dhinaca xagga Mustafa Maxamed Umar baan aad ula socday oo si bayaan u soo baxday inkastoo idaacadda iyo waxa dhan ay haysteen markaas horta waxaan doonayaa inaan ka hadlo tafaasiil ka bixiyo khudbadii Mustafa khudbad waxay ahayd isku dhex digto oo badan wanaag iyo xumaanba way lahayd inkastoo nin soo istifaacay yahay haddana waxyaabo badan oo run uu ka hadlay waxyaabo qaladaho badan oo ka hadlay marka waxaan doonaynaa inaan isu miisaano khudbadahaas qaladkiisa iyo wanaagiisa inaan isu miisaano dhinaca u bato aanu wax ka hadalno haddii wanaagu bato inaanu wax wanaagsan buu sameeynaa haddii xumaanta u batana dee xumaan buu sameeyaanaa inkastoo waxyaabaha aflagaadii ku jireen oo sida qadiyadda uu caayay oo kale dadkii xataa meesha firfidhay buu caayay oo xataa kuwii caayayba u sacabeeyey taasi waa liitinimo iyo dee dadku oo markii horeba inayna qadiyad lahayn taas Mustafa aanu kulama yaabani laakiin qolada fadhiday ee ururka ka soo tirsanayd ee soo dagaalami jirtay ee u dhimatay ee u dhaawacantay ee u xabsiga u gashay ee caayada sacabka ugu tumaya baan dhaliilaya Mustafa ma dhaliilayo Mustafa waxaa kama fahansanada markaad Mustafa asaa u fiiriso qadiyadan iyo xasaa ma fahansanaba marka laakiin dadka meesha fadhiyay baan aanu dhaliilaya Mustafa ma dhaliilayo Mustafa waxaa fiican oo ka hadlay inkastoo dee waxaan loo khudbada loo soo qoray laakiin waxyaabo jeebkiisa ku dhex darsaday baa jira oo kolaba la soo qorin waayo waxaas oo kale laba soo qorin qadiyada dhan uu ilaaha saasay ahaan jireen oo saasay ahaan jireen oo maxay bay ahaan jireen ma ahayn waxa loo soo qoray baan aanu jeclahay markaas saa darteed laakiin wax badan oo fiican oo ka hadlay waayo qofka inaad xumaantiisa u sheegto ma aha bal dhinaca kalena waan raadinaynaa waxa iyaguna ka hadleen kolley midkoodna faa'iida saa male laakiin dadweynaha Mustafa in yar baa laakiin ka qaldanayd dadweynaha hor fadhiyay khudbadiisa kuma ayna faraxsanayn wajiyadooda muuna dareemin isaguna inayna ku faraxsanayn hataa sacabka la tuba shakhsiyaad yar hataa caruur yar baa yaa ka soo jeeda ciyaal yar baa ka soo jeeda khudbadiisa oo marna u riyaaqin jirkooda wax farxada isbedelay markii hore farxad ku fadhiyeen laakiin markuu khudbadii bilaabay buu jirkooda isbedelay ciyaal yar baa joogay kamarada waad ka eegi kartaa waad fiirin kartaa markaas ay la tusino sheekada bedelay waayo dadku sida u badan yihiin ma aha inaad ka hadasho iyo waxa mustaqbalka ciyaalka yaryar ay garanayaan inaad gaf u geysato ma markaas darteed waxaan rabnaa inaan kuwa kalena fiirno waxay sameeyaan waa isma dhaati iyo dhasheeda labada dhinac aan su miisaano markaa de qofka hadday Mustafa uu ka wanaagsanaa oo sheegaynaa hadduu maaday wanaagsanaa oo sheegaynaa anagu waxay noo kaliin ma jiro labada midna ma aaminsaniba laakiin haddana de qofku markuu mas'uul yahay haddana waxaa lagu qiiman karaa khudbadda uu dadka u jeediyo iyo wuxuu dadka u sheegaya ama been ha ka ahaato ama run ha ka ahaato taasaa keeni karta dadka bini'aadanka yaa qancin karta waxay doontaa ha ka ahaatee marka laakiin anuu rag meesha fadhiyo Maxamed Anni iyo ninkan ina Axmed Maqtal Bashiir iyo baan aad ula yaabay oo noqotay qoladii sacabka bal ragga intaas soo halgamayay 30 sano soo halgamayay iyo ka badan wiil yar oo waxaan fahansanayn iyaga caaya laftooda caaya saasay ahaan jirteen oo dadka saa ku oran jirteen oo dad waxaas waa wax tagay male laakiin qof walba hadalkiisa qofkii hadalkiisa soo gibe Soomaalidu ku maamaano ma dhib male laakiin waxyaabo badan oo fiican buu maanta Mustafa ku hadlay ma sha Allah markaas
qolada kale aan baarayna oo isu miisaamayna waan soo dhigi doonaa yani say ugu kala guuleysteen xaflad midda kale xaflad iyo sanad guuro in waxyaabaha lagaga hadlo oo xumaan la keeno ma fiicna in dadka la baraarujiyo oo farxad iyo halkan aan gaarnay iyo waxa in laga hadlaa fiican laakiin in xisbiye iyo ma aha tan xisbiye iyo ma aha hataa haddii lagu saxsiimo inaad si fiican uga qayb gashood ammaantood wax qabadkoodii ka sheekaysaa fiican laakiin xumaantoodii inaad ku bilowdo ma fiicno marka laakiin hore baa loo socon doonaa insha allah waan salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu